waxaa maalinimadii shalay magaalada Baghdad ee caasimada dalkan Ciraaq dib looga furay safaaradda Soomaaliya. calankeena baluuga ayaa dib loo suray caasimada dalkaasi Ciraaq ku dhawaad 20 sano kadib. waxaana ka soo qayb galay furitaanka safaaradda Soomaaliya mas'uuliyiin uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdisalaam Cumar Hadliye iyo diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Cabdisalaam Cumar Hadliye oo kaashanaya mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa si wada jir ah xarika kaga jaray safaaradda Soomaaliya. mudane Hadliye ayaa furitaanka safaaradda kadib sheegay in ay tahay guul u soo hooyatay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in dib loo howlgeliyo safaaraddii aan ku lahayn caasimada Ciraaq ee Baghdad. markii ugu horeysay ilaa 1993 ayaa safaarad Soomaaliya oo meel rasmi ah ku taalo oo gurigeeda degan oo calankii aan saarnay waxay tahay sharaf weyn aad dadka Soomaalidu meel ay joogaan Marwo Khadiija safiiradeena in loo mahadnaqo iyo staafkeeda halkan jooga oo intaas oo dhan ka shaqeynayay. waa wadankani waa wadan muhiima, waa wadan caraba, waa wadan muslina, waa wadan aan taariikh dheer wada leenahay. caleemasaarka safaaraddeena jamhuuriyadda Soomaaliya federaal ee Baghdad inaan ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan u arkaa inay waajib tahay safaaradaha ku dhow marka ay munaasabadan oo kale ay meel ka dhacayso inay ka soo qayb galaan. runtii waa munaasabad aad u wanaagsan, waliba dowladda Soomaaliyeed iyadoo tixgelinayso xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Ciraaq ka dhaxeeya. anigoo matalaya guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa sharaf weyn oo ah in calankeena maanta la saaray meesha tan. waxaan rajaynayaa safaaradda iyo safiiradda Khayralaasi iyo shaqaalaha safaaraddaba in Ilaahay uu waafajiyo sidii lagu sii nooleyn lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ciraaq. munaasabad aad iyo aad u wanaagsan ayay ahayd. maxaa yeelay 22 sano kadib markii safaaradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq magaalada Baghdad ay xirantay in maanta lagu guuleystay in dib loo furo oo cilaaqaadkii labada dal iyo iskaashiga labada dal oo ah laba wadan oo cilaaqaad iyo iskaashi xoog badan oo taariikhi uu ka dhaxeeyay uu dib u soo laabto. safaaraddan ay rumuud iyo horseed u noqoto cilaaqaadka isii soo celintiisa arrin aad iyo aad loogu farxo waaye. danjire Khadiijo Al-Maqsuumi ayaa ka dhawaajisay in ay sii adkeyn doonaan iskaashiga labada dowladood Ciraaq iyo Soomaaliya. waxaa aad ugu faraxsanahay maanta in safaaradda Soomaaliya Baghdad la furay bishii ay tahay maalintii 15 Oktoobar 2015. sharaf waxay maanta cilaaqada labada dal Ciraaq iyo Soomaaliya waa muhiim. arinta kuwa ka bilaaban waxa waa cilaaqada labada dhinac dowladeed, dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda, xoojinta dhaqaalaha iyo waxbarashada. waxaa ku soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya xaggan laga furay wixii ala facilities loogu baahan yahay diyaar u nahayna safaaradda Soomaaliyeed xaggan ugu qaban. Cabduqaadir Axmed Sheekh, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed wadamada Khaliijka Carabta.